waa tahay kulanti wacan wanaagsan daawadayaal xubinteena kooban ee daaqaad waxaanu ku soo qaadan doonaa 10 sababood ay dumar ku galaan naarta waxa naf walba khasab ku ah inay ogaato in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hor istaagi doonto maalinta qiyaamaha ka bacdina qofku aadi doono jannada ama naarta sida uu nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis ku yiri qof idinka mid ma jiro ilaa waxa hor istaagaya Ilaahay wax turjumaan ahina ma jiraan dabadeed qofku waxa uu eegaya dhankiisa midig waxa uu arkaya amalkii uu hormarsaday markuu adduunka joogay dabadeed waxa uu eegaya dhankiisa bidix waxa uu arkaya amalkii uu hormarsaday markuu adduunka joogay wuxuu eegaya hortiisa wuxuu arkaya naartii oo ka soo qaabilayso hortiisa haddaba waxaanu jeclaysanay inaan xubinteena kaga hadalno 10 sababood dumarku naarta ku galaan taas oo mid walba nabigu ka warramay marka hore intaanu nagelin nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu xadiis ku yiri yaa macshar nisaa tasaddaqna واكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثرنا أهل النار haweenkow waxaad la baxdaan sadaqada ilaahayna waxaad weydiisataan dambi dhaaf waxaan idinku arkay inaad tihiin dadka ugu badan ee naarta galaya xadiisku waxa uu nabigu ku cadeeyay in ay dumarku yihiin dadka ugu badan ee naarta galaya haddaba waxa mudan in aan wax ka tilmaano waxyaaluhu nabigu cadeeyay sallallahu alayhi wasallam in ay haweenku naarta ku galayaan qayb ka mid ah kow haweenka oo ninkeeda aan abaal gudin nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu maalin u yimid dumarka oo salaad ciidah tukaday markaas ayuu wacdiyay waxa wacdigiisa ku jiray inuu yiri waxa tihiin kuwa u badan galitaanka naarta markaas ayaa haweeney nabiga weydiisay maxay tahay nabiga Allah sababta ugu badan ee aan ku galayna naarta waxa uu nabigu ku jawaabay sidan takatharna la'na wa takfarna al'ashira waxa uu yiri abaalka ninkiina ma gudaan waxa aad kalood ku badisaan aflagaadada xadiiska nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku cadeeyay laba arrimood inay ka mid yihiin waxyaalaha haweenka u keenay inay naarta ku galaan labada qof oo isqaba waxa isku leeyeen xuquuq gaar ah marka wax xaq ah in mid walba midka kale ilaaliyo xaqiisa waxa kale nabigu sallallahu alayhi wasallam ku sugan xadiis uu leeyahay hadii aan qof oran lahaa in qof kale uu sujuudo waxaan amri lahaa inay haweeneydu u sujuudo ninkeeda waxa kale uu nabigu ka sugan xadiis kale oo micnihiisu yahay hadii aad midood wanaajiso ay hal mar ka aragto wax ay jecleen waxay oranaysaa weligii wanaag kama arag xadiiskan waxa uu cadeeyay sida ay dumarku u ilaawaan abaalka uu ninkeedu ku leeyahay waana waxyaalaha u keena inay naarta galaan laba ninkeedu ay khiyaanto inay samayso gogoldhaaf iyo wax la mid ah waxa kamid ah waxyaalaha haweenka ku gasha naarta inay xiriir hoose la samaysan nin kale oo ay ka dhacaan waxyaalo xunxun sida sinada iyo waxyaabo la mid ah waxa nabiga laga wariyay xadiis odhanaya فإذا ما تمنى على بين الثنار علاه الضيق وأسفله واسع توقد تحته نار فيه رجال ونساء عرات فإذا وقد ترتفعوا حتى يكاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها waxa lay tusay waxa sida tinaarka sida oceanka oo kala ah xaqiisa sare way yarayd daba ayaa hoos kaga shidnaa waxa ku jira rag iyo dumar qaaqaawan marka dabka hoos laga soo shido kor ayay u soo kacayeen ilaa ay ku soo dhawaadaan inay ka soo baxaan marka dabku yaraadan hoos ayay ku noqonayeen nabigu wuxuu weydiiyay jibriil dadka sida loo cadaabayo waxa maxay ahaayeen wuxuu ku jawaabay dadkii sinaysta xadiiskan waxa uu nabigu soo cadeeyay ciqaabta ay leeyihiin dadka sinaysta waxaana xadiiska ka cad in qabriga marka la geliyo lagu bilaabayo ciqaabkaas iyo qiyaamaha la soo saaro marka la soo saarana waxa ka dambeeya waa ciqaab iyo cadaab kale waxa uu nabigu xadiiska ku leeyahay in la tusiyay haweeney naasaha loo jiiday bir naar ah naarta dhexdeeda waxa uu nabigu sheegay dadka saa loo galaya waa haweenka nimankooda u soo hoos galiya ilmo aynan dhalin saddex inay baxdo gabadhu iyadoo aan asturnayn ama dhex gasho rag ajaanib ka ah waxa kale oo sababaha dumarka naarta ku galaan ka mid ah in ay baxdo iyadoo aan asturnayn ama safar gasho iyadoo aan mixnimkeeda u helin ama dhex gasho rag ajaanib ka ah waxa nusuusta ku cad hadii ay gabadhu saa samayso in ay u keenayso in ay naar gasho wuxuu nabigu xadiis ku yiri sifaan min ummati min ahli an-nar lam arahum ba'dan نساء كافيات عارات مائلات ميلات على رؤوسهن أمثال أثمة الإبل لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها وحو النبي صلى الله عليه وسلم حديث كيوري لبن نوع dadka kamid ah dadka naarta loogu talagalay waxa labada nooc kamid ah haween dhar qaba hadana qaaqaawan xaq ka tagay dadkana xaq ka leexiya waxaad madaxooda moodaa kuriska geela kuwaas jannada ma galayaan meel ay uga soo urtana ma tagayaan dadka sifaadkan leh oo xadiisku sheegay waxa cad in ay naarta galayaan ayna jannada galeen marka waxa haboon gabadha muslimadda ay inay iska eegto dharka ay qaadanayso kuna dadaasho in ay qaadato dharka sharciga oo ogol yahay iyo inay iska ilaaliso inay dhex gasho meel aan loo ogolayn si ay uga fogaato waxyaalaha naarta u keenaya afar
in ay diiddo haddii uu ninkeedu ugu yeedho isaga oo kale dantiisa gaar ahaaneed. waxyaalaha naarta dumar ku galaan ayaa waxaa ka mid ah in ay haweenku ninkeedu u diiddo in ay la yeesho jamaac danta gaarka ah ee ka dhaxaysa ninka iyo xaaskiisa oo xagga sariirta, iyadoo aanay jirin wax diidaya inay sameeyaan sida inay jiran tahay ama caado qabto iyo wixii la mid ah. waxaa nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis ku yidhi idaa baatat ilmar'atu haajarat firaash zawjiha lacnatu almalaa'ikatu xataa tasbax. macnaha xadiidku waa haddii haweenku waagu u beriyo iyadoo ka dheeraatay firaashka ninkeeda oo diiday ninkeeda, waxa lacnad ku rida malaa'igta ilaahay ilaa waagu ka beriyo. waa dembi weyn oo qofka naar ku mutaysto inay gabadhu isu diiday ninkeeda iyadoo aan lahayn wax durdaar ah. 5 afka iyo adinka oo ay dadka ku dhibto. haddii ay haweenku ku dhibto ninkeeda iyo dhammaan muslimiinta kale waxay ku galaysaa naarta, sababtoo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo nebigu sallallahu alayhi wasallam waxay xarimeen in lagu dhibo muslimiinta af iyo adinba. waxa uu nebigu sallallahu alayhi wasallam yidhi can abi hurayrata qaal rajul ya rasuulallah ina fulaan fadakara min kathrat talaati wa sadiqatiha wa istiyaamiha qaal annaha taadii jayraanaha bilisaaniha qaal hiya fi nnaar. macnaha xadiisku waa in uu nin u yimid nebiga dabadeedna uu uga warramay haweenayda heblaaye ah way salaad badan tahay, wayna sadaqo badan tahay, wayna soon badan tahay, laakiinse waxay carabkeeda ku dhibtaa dariskeeda. nebigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku jawaabay haweenaydaasi inay naarta gelayso. 6 in ay had iyo goor sheegto beentu waxa ay ka mid tahay waxyaalaha dad ku galaan naarta. waxa uu nebigu xadiis arrintaa kaga hadlayo ku tilmaamay wayna alkadaba fujuur wayna alfujuur yahdi ila an-naar wayna al-'abda la yataharra al-kadab hatta yuktibu kadaban. micnihiisu waa beentu waa faajirnimo, xaqa ayay duwaysaa. faajirnimaduna waxay ku geysaa naarta. qofka haddii uu beenta badiyo waxa laga dhigaa been laawe. xadiisku waxa uu tilmaamayaa in ay beentu naarta ku geynayaan qofkana ilaahay agtiisa looga aqoonsanayo inuu beenaalawe yahay. 7 in ay haweenku iska kibriso ninkeeda. haddii ay haweenaydu iska kibriso ninkeeda oo markay la hadlayso isla weydo ula hadasho ama ay ku jeesjeesto waxa ay arrintu ku galaysaa naarta. sida nebigu xadiis ku tilmaamay wuxuu yidhi yaxshuru mutakabbiruna yawma alqiyaama amsaalu darru fi sawri rijaal yaqshahum dullu min kulli makan yasaquna ila sijni fi jahannama yusamma boolis ta'aluhum an-nar al-anyaar yasquna min itharati ahli an-nar diinat al-khibal. xadiisku macnihiisu waa in nebigu sallallahu alayhi wasallam yidhi waa la soo saarayaa dadka iskibriya maalinta qiyaamaha iyagoo la mid ah quraanjo oo qaab dad leh. waxa ku dhacayaan dullinimo. waxa loo kaxaynayaa xabsi ku yaala jahannama dhexdeeda, magaciisuna yahay boolis. waxa ka kor noqonaya naarta waxa lagu waraabinayaa dheecaanka ka soo baxa dadka naarta ku jira. subxaanallah. 8 inay haweenaydu badiso argagax iyo oohinta aan sharciga ahayn markii masiibo dhacdo ama qof ka dhinto, in qofku ka caroodo ama ka xanaaqo qadarta ilaahay haddii ku timaado sida ninka oo ka dhinta, cunug ka dhinta ama masiibo kale oo ku dhacda. waxa uu nabiga xadiis ku yiri sallallahu alayhi wasallam anna hayatu idha lam tubtu qabla mawtiha tuqam yawm alqiyamati wa alayha sirbal min qadran wa dar'u min jarab. macnaha xadiisku waa naagta balanbasho oo qaylisa markii qof ka dhinto haddii aanay toobad keenin qiyaamaha waa la soo istaajinayaa iyadoo qabta dhar daamir kulul leh iyo dirac laga sameeyay calo. subxaanallah. 9 in ay dadku isku dirdirto ay warka u kala qaado. ficilada xunxun ay dadku ku galaan naarta waxa ka mid ah in ay dadka u kala qaado wararka si ay isugu diraan, waana arrin aad iyo aad halis u ah. qofka sameeyana ma gala jannada, wuxuu ka mid noqdaa dadka naarta galaya. waxa uu nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis ku yiri laa yadkhulu jannatu qataatan. macnaha xadiisku waa inuu nabigu yiri qofka dadka isku diro oo warka u kala qaada jannada ma galo. waxaynu u naqaano namiimiyaha. 10 in ay haweenaydu cunto ribada. ribadu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ay dadku naarta ku galaan, waana waxyaabaha ay diintu ka digtay in la isticmaalo. ilaahayna wuxuu quraanka ku leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. معناها آيات وين إلهي سبحانه وتعالى يدي كو ربا عنا قبرك وحا ay ka soo baxayaan iyaga aad moodo in ay waalayeen sababtuna waa in ay yiraahdeen iibka iyo ribadu waa isku mid. ilaahayna iibka waxa xalaaleeyay ribadana waa xaaraantinimeeyay. haddaba waxaan ku soo gabagabaynaynaa inay aad iyo aad u badan yihiin waxyaabaha naarta ay gabdhuhu ku gasho, laakiin waxaan ka soo qaatay 10 qodob oo kaliya. waxa haddaba haboon in gabadha muslimadda ah ay ka dheeraato waxyaabaha u soo jeedaya inay noqoto mid ahlu naara.